mari doonaa. Waayahay igu tiri. Ugu dambeyn jaamacadda markaan ka soo baxay ayaan soo baxay meel ice cream ayaan soo maray oo aad u jeclayd. Ice creamkii ayaan u soo qaaday xaafadeedii ayaan si toos ah u soo aaday anigoona xaafadeyda aadin. Saaki hore ma aanan quraacan, haddana waa xilli qado. waxaasoo dhan iima muuqdaan. xaafadii markaan imid hooyadeed way maqneed, iyada ayaa guriga joogtay. cabaar markaan sheekaysanay ayay ugu dambeyn waxay igu tiri xilligan waa xilli qado. waan ogahay in sidaa jaamacadda ugu timaaday aan aniga ugu timaaday. maanta halkan ayaa ka qadeynaysaa. waxaan ku dhahay maya, xaafadda ayaan ka qadeynayaa, iska daa. waxay igu tiri maya, ilaa waa qadeynaysaa, haddii kale waan kaa xumaanayaa. waayahay ayaan ku dhahay. markaasay igu tiri marka ugu horeysay ayaan labadeena isla qadeyn doonaa. waxay ii ahayd farxad hadalkaasaan la qiyaasi karin, waayo jacaylkaan u qaba gabadhan qalbigayga oo keliya ayuu ku jiraa. qofka keliya aan u sheegay gabadhan inaan jeclahay waa saaxiibkay. halkii ayaan ku wada qadeynay. lama soo koobi karo farxaddayda. anigoo wax jacayl aan u sheeganin ayaa haddana waxaan noqday qof iska faraxsan, waayo gabadhii aan jeclaa ayaan maanta idla soo qadeeyey. farxad aan runtii u dhigo ma aynan lahayn. anigoo faraxsan oo aana dareenkayga la qiyaasi karin ayaan soo baxay oo aan xaafadda imaaday. way soo wacday. ma naba tagta ayay igu tiri. haa ayaan ku dhahay. runtii xaaladdeeda caafimaadkeeda ayaan mar walba waxaan ahaa qof ogaanayay. waxay sidaa ahaato xaaladdeedii waxay noqotay mid fiican. waxaan bilaabay inaan jaamacadda markaan ka soo baxo aan soo maro oo aan iskoolka hortiisa ku sugo, oo markay iskoolka ka soo baxdane aan xaafadda geeyo. anigu jacaylkii gabadha aan u qabay runtii wuu igu saa'iday. jadwalka noloshaydana wuxuu noqday mid jahwareera. waxbarashadayda iyo si shakhsiyan jadwalkii aan lahaa wuu iga jahwareeray. 24 saac waxaan keliya ka fikiraa gabadhan, sidaan ugu sheegan lahaa jacaylkayga mar walbana qalbigayga ayay ku jirtay. waxaa jirtay sawiro aan ka hayay, xaqiiqdii mar walba wehel ayay ii ahaayeen inaan sawiradaas daawado. runtii saaxiibkay mar walba wuxuu igu dhiirigelinayay inaan u sheegto jacaylkayga si labadeena si wada jir uu jacaylkiina ugu socdo. runtii wuu dadaalayay saaxiibkay, mar walbana wuu igu dhiirigelinayay. ugu dambeyntii waxaan go'aansaday inaan gabadhan aan jeclahay 24 saac aan ka fikirayo ee iyada walaaltinimada kaliya og inaan jacaylkaan u qabo dareenka iga dhex guuxayo aan la wadaago. waan wacay, waxaan sheekaysanno, aan kaftanno. waxaan ku dhahay runtii waxaan kaa leeyahay arrin muhiim ah oo aan rabo inaan kula wadaago. sidaasay tahay waxaan rabaa marka ugu horeeyey ee labadeena meel bannaan ah aan ku soo wada sheekaysano inay noqon doonto. markaasay igu tiri waa arrin fiican, halkeen ku sheekaysannaa? waxaan ku dhahay beerta nabadda ayaan aadaynaa, halkaas ayaan ku soo wada sheekaysanaynaa. waayahay ayay igu tiri. waxaan wacay saaxiibkay, waxaan u sheegay waxaan damacsanahay inaan rabo gabadhii aan jeclaa ee mar walba aan ka fikirayay, ee mar walba aan ugu sheekaynayay saaxiibkay maantay inaan u sheegto dareenka aniga iga dhex guuxayo ee qalbigayga ku jiro inaan la wadaago. wuxuu igu dhahay saaxiib waa arrin wanaagsan, waxaana kuu rajaynayaa guul. waxaan ku yidhi saaxiib galabta ayaan waxaan ku ballannay inaan beerta wada aadno. waad og tahay meel walba aan aadayo adigaa i geeyo. markaasuu wuxuu igu yidhi saaxiib ha ka baqin, saaxiibkaygoo dhan oo jacayl sheeganayo marna lagama yaabo inaan meel kale ka aado. adigoona dan weyn lahayn ayaan kuu imaan jiray. maanta way nooga duwan tahay maalmihii kale. saaxiibkayga mootadii ayuu soo dhaqay, aad uu u soo qurxiyey, wuu ii yimid. waan israacnay, gabadhii ayaan kaxeennay. anagoo faraxsan ayaan wada baxnay. waxaan aadnay beerta nabadda. saaxiibkay halkaas ayuu noogu haray, anigii gabadhiine. beertii lacagteedii ayaan shubnay, gudaha ayaan galay. runtii waxay ii ahayd maalin gooni ah, inkastoo mar walba qalbigayga welwel uu ku jiray. ma ku aqbali doontaa ama way ku yeeli doontaa? ugu dambeyntii gudahan galnay, kaftan iyo sheeko halkaasaa waxaan ku cabi karno ku cuni karna ku cunnay. ugu dambeyntii waxaan u bilaabay xaqiiqda saxda ah ee halkaana u imaanay iyo qalbigayga dareenkayda ugu jiro. waxaan ku dhahay waxaa hubaal ah inaan si walaaltinimo, saaxiibtinimo labadeena aan isku barannay. laakiin waxaa hubaal ah maalinba maalinta ka dambayso wanaaggaaga, eedaabtaada, quruxdaada iyo wanaaggaaga tirada badan
inuu igu beeray jacayl xadhaaf ah. runtii in muddo ah ayaan kaa qarinayay jacaylka keligay i hayay. maalinba maalinta ka dambayso wuu igu zaa'idayay jacaylka aan kuu qabo. heer waxaan gaaray jadwalka noloshayda oo dhan oo jacaylkaaga dartiisa uu iga qaldamo. hadday ahaan leed waxbarashada, hadday ahaan leed noloshayda caadiga. waxaa xaqiiq ah 24 saac inaan sawiradaada oo keliya daawado. xaqiiqdii waan ku jeclahay. anigoo awooday inaan ku soo waco kool ahaan kugu sheego ayaan waxaan jeclaystay hortaada inaan soo fadhiisto, anigoo wejigaaga quruxda badan eegayane aan kuu sheego waxa qalbigayga ku jiro. markaase waxay igu tiri, xaqiiqdii waxaa ah inaad tahay wiil aad u wanaagsan, aana tahay wiil aad u naxariis badan. gabar walbo waxay jeceshahay wiil naxariis badan oo u danqanayo. adigu waxaa tahay wiil gabar walbo ee ku fikirayso. anigu runtii waad ii naxariisatay, si wanaagsan ayaad igu dhaqmi jirtay. waxaa tahay wiil wanaagsan, naxariis badan. haddaan runta kuu sheego, anigu xataa mar hore ayaan dareen jacayla kuu qaaday. anigaba waan ku jeclahay. markay ii dhahaysay anigaba waan ku jeclahay, waxaa xaqiiq ah inaanan farxaddayda mara la soo koobi karin. waayo gabadhii aan mar walba ku fikirayay goormaa u sheegan doontaa ee saaxiibtay ahayd ayaan u maleeyey keligay inaan jeclahay. waxaan ogaaday dareenka jacayl anigaan u qabo iidana xaggeeda inuu jiro. waxay ahayd maalin ka duwan maalmaha kale, waqti badan oo jacaylka anigu keliya uu ii gubo. laakiin maanta ayaan ogaaday gabadhii aan jeclaa ee in muddo ah aan keligay ku qarsanayay qalbiga in iidana ay jeceshahay, aniguna aan jeclahay. halkaas waxaa inooga bilowday axdigii jacaylka iyo waddadii jacaylka. waxaa halkaa wada furannay in waddo jacayl oo qurux badan. shalay haddii aan ahayn dad walaalo ah, is ixtiraamo, isqadariyo, haddana inaan noqonno dad isjecel, farxad mar walba wada jir ku wada noolaada. anigoo aad u faraxsan oo waqtigana uu sii gabagaba yahay, maqribkii uu nagu dhow yahay, ayaan waxaan wacay wiilka saaxiibkay. waxaan ku idhi, saaxiib ii imow. ugu dambayntii wuu noo yimid, waan soo wada baxnay. waxaan keenay xaafaddeeda dareenkii hore, dareen ka duwan, farxad ka duwan anagoo ah ayaan isoo macsalaameynay. anii saaxiibkay waan soo baxnay. markaan soo baxnay oo xaafadda ii keenay ayaan mootada baakinnay si aan labadeena xaafadda ugu wada casheyno. ugu dambayntii cashadii ayaan ku sheekaysannay. waxaan ku dhahay, saaxiib waxaa xaqiiq ah inaad tahay saaxiibkayga, inaad tahay qofka mar walba ila talinayay, mar walba ii dhahayay jacaylkaaga u sheeg gabadhan. ugu dambayntii inaan jacaylka u sheegtay. saaxiibkay inuu soo booday ayuu yidhi, saaxiib idheh, igana farxi. way ogolaatay idheh. markaasaan ku dhahay, saaxiib ogolaasho keliya ma aha, sidaan u jeclahay ayaa iidaba ii jecleed oo way qarsanaysay. siduu jacaylka aniga ii gubaayey uu keligay igu ahaa ayuu iidana keligeed ku ahaa. wuxuu igu yidhi, saaxiib farxaddaadu waa farxaddayda. caawa way noogu duwan tahay habeenihii kale. xaqiiqdii aniga mar walba oo gabadhan jacaylkaa u qabta aan arko, waxaan ku fikirayay saaxiibkaa haddii uu waayo siduu noqon doonaa, maxaa dhici doono. laakiin waa arrin farxada. saaxiib jacaylkaaga, farxaddaada, noloshaada saaxiib ilaalso. waan kuugu ogahay deganaan badan, waan kuugu ogahay sabar badan, laakiin mar walba waxaa lagaa rabaa inaa ixtiraamto, aad qadariso. caawa wejigaaga farxadda ka muuqata fiiri, xataa aniga ayaa kula faraxsan. saaxiib dumaashi mar walba ilaali. waxaan ku dhahay, saaxiib sidaa naftayda u ilaaliyo ka daran ayaan u ilaalinayaa. waxaa xaqiiq ah wax walba oo farxaddeeda inaan soobin doono. ugu dambayntii saaxiibkay wuu iga soo tagay isagoo ii hambaliyeeyey. aniga ayaa habeenkii wada sheekaysannay. habeenihii hore habeen ka duwan, jacayl qurux badan, farxad. jacaylka wuxuu qurux badan yahay markaa qofka aad jeceshahay farxadda wadaagaysaan, wada sheekaysanaysaan. adigu waad og tahay jacaylka, idana ay kuu og tahay jacaylka. runtii markaa wuxuu noqonayaa mid aad u qurux badan oo aad u macaan. runtii maalinba maalinta ka dambayso farxaddeenii iyo jacaylkeenii xaqiiqdii wuu sii socday. waxay sidaa ahaato. halkani waa hooyga qisooyinka Hiigsi lambar 1. mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya,
kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo dheh una share gareeya asxaabtaada hayloobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah Subar Carab